بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo jirnay maadadeennii quantity surveying ama cost estimation waxaan kusoo jirnay chapterkeenii shanaad ee grade beams waxaan soo gaarnay cashirkeenii labaad waxaan soo saarnaa the rest of vertical beams homework of the rest of vertical beams ayaan soo saarinaa waa hore oga soo hadalnay markaan homework aan soo saarayna grade beams inaan u kala qaybinayno vertical iyo horizontal beams annagoo soo qeexnay gradeska ay leeyihiin haddaba waxaan ka soo shaqaynay A iyo C iyo labadan yaryarka ee u dhexeeyo A iyo B waxaan rabaa A iyo C iyo 1 iyo 2 darsigan ka horreeyay ayaan kuwaas ku soo sharaxnay maantana waxaan ka shaqaynaynaa baidmo the rest of vertical beams oo ah midkan sidoo kale waxaan ka shaqayn doonaa midkan asagana kan iyo midkaas saddexdaas beam ayaan soo saari doonaa insha Allah quantity homework of these beams haddii aan ku horumarno midka koobaad waa kana beamkan locationkiisa haddaa fiirso waxaa waaye waa beam on grade B wuxuu yaalaa wuxuu dhacaa grade B wuxuu u dhexeeyaa between 2 and 3 wuxuu saarno saan ogaana cabirkiisa inside waa imisa waxa way waa 3600 millimeter dhanka kalena markaad ku darto waxa way waa limit it will be 7200 millimeter ama 7.2 meter markaad ku darto geeska kale yani parameterka waxa waaye 7.2 haddaba marka excel sheetkeeni aan soo furanno waxaan leenahay kalinta iga soo dhig number 3 waxaan dhahaynaa homework of grade beam location on grade B and between you're right like that and between wuxuu dhaxeeyaa 2 iyo 3 samahay wuxuu dhaxeeyaa on grade B waaye wuxuu dhaxeeyaa 2 iyo 3 2 and 3 meeqa beam waaye waa hal xabo lengthgiisa meeqee buu ahaa waa 7.2 meter heightka waa garanaysiin waxaa waaye waa 0.225 totalka si yacni mid walba totalkiisa aan u helo inta qabo kusoo jiid يعني kuwa ka dambeeya si automatic aan ugu helo excelkaada waa si fiican u shaqeysaa hagaag marka 1.6 ayuu noqday 1.62 meter cubic ayuu noqday beamkaas aan u gudubna marka beamka xigo asagana aan soo saarno kan baan soo qaadana midkan ayaa ku soo xigo waxaan ka shaqeynaa vertical beams si fiican la socyaa asagana cabir saar cabirka meeqa waaye waxa waaye outside dimension waxa waaye waa 4425 millimeter ama 4.425 meter 4.425 meter locationkiisa marka waxa waaye fiiriya si fiican u faham locationkiisa waxa waaye waa between B and C and also in between 3 and 4 mujida wuxuu u dhaxeeyaa B iyo C dhanka verticalka dhanka horizontalkana wuxuu u dhaxeeyaa 3 iyo 4 u dhaxeeyaa marka maxaan leenahay markaan ka shaqaynayno excel sheetkeeni imow waxaa dhahaysaa number 4
formwork of grade beam on grade wuxuu dhaxayaa B C and C comma ku laabo hubi wuxuu dhaxayaa B and C waa kana intana maxaa waaye 3 and 4 comma 3 and 4 3 and 4 okay meeqa beam waaye waa hal xabo lengthgiisa meeqa waaye lengthigana isku soo darno waaye sorry 4.425 waxaan ka jaraynaa mid ka mid ah waxaan ka jaraynaa this one baa ka jaraynaa oo ah waxa waaye waa 0.225 0.225 markaad ka jarto sorry soo kala go waxa ku soo baxayo 8.625 isku soo dardar ama haddaan ku qoro calculator-ka soo furo calculator-kaada soo furo dhib ma lahan waxaa haysanaa 4425 waxaad ku dartaa yani waxaad ka goysaa 0.225 oo laga jaray 0.225 waxa waaye 4.424.7 waxaad ku dartaa marka outside dimensionka ku dar 4.4425 waxaad ku dartaa plus 4425 8.84 hal mar ku laabo hubi hal mar ku laabo waxaan haysanaa 4425 يعني كان waxaad ku helaysaa inside dimensionka kan oo laga jaray that one oo 225 ah 0.225 waxaan ka jaraynaa midaan dan labadooda isku daraynaa very easy 4425 minus 0.225 oo lagu daray marka oo lagu daray 4425 yes oo lagu daray plus 4425 okay waxa u bedeshaa marka saamit loo eegto 1000 u qaybi maxayna 8.85 yes length maxayna marka parameterka 8.85 yes excel kaadu imo 8.85 height ka asaga waxa waaye waa 0.225 automatic ba ku weynaa marka yes 1.99 or 2 adun isku yahay okay number 5 marka hal beam ayaa noo dhiman baan filayaa halka beam oo noo dhiman midkan weeyaa marka kan ayaa noo dhiman midkan ayaa noo dhiman dhanka verticalka haddaba asagana saan u helno marka muxuu noqonayaa cabir saar geeskan ayuu ka bilaabanayaa ilaa iyo geeskan weeyaan ma fahanta maxaad haysataa 3.6 ayaad haysataa inta qaybtaa marka waxaa leedahay inta laga bilaabo halkaas ilaa iyo inta ayaa waxaa ka jiraysaa
0.225 waxaa weeye 40 50 waxaad ka jirtaa 0.225 40 50 minus 0.225 waa imisa waxaa haysanaa 40 49.7 waxaad ku dartaa marka outside kan ku dar waxaa weeye 36,000 plus deh 3600 waa imisa waxaa waaye 7.7649 waxaa u qiimaysaa marka 1000 saad ugu bedesho mitir maxaa haysanaa 7.649 7.65 7.65 yeah 7.65 waxaa noo ah lengthiga laakiin before that waa inaan samaynaa waxa loo yaqaano locationkiisa halka uu dhaco waa inaan sheegnaa locationkiisa waxaa waaye waa beam on grade B and between 3 and 5 yes waxaan filayaa inaad fahamtiin waxaan leenahay formwork of grade beam on grade B, comma between 3 and 5 meeqa beam waaye waa hal xabo dherarkiisa waa kana parameter waa isku soo darnay heightkiisa waa 0.225 kuwa hore uu la mid yahay automatic baa marka weynaa okay marka halkan waxaa nooga soo baxay dhammaan vertical beamska formwork gelayo dhan waxaa waaye 20.39 meter square oo formwork ah ayaa gelayo maxaa la dhihi jiray ii sheeg dhammaan vertical beams on grade beam dhammaan beamyadan kan dhammaan wax alla wixii vertical labadan kan midkan all waxaa gelayo waxaa loo yaqaan 20.39 hope you understand this section waxaan filayaa inaad fahamteen qaybtan haddii aad wax su'aal qabto waa nala wadaagi kartaa base comment ahaan noogu soo reeb wax su'aal aad qabto waxaan kaa codsan lahaa in YouTube channelkeena subscribe saarto si uu u gaaro dad badan intaas ayaan kusoo gabagabeynaa darsigan xiga ayaa noo balana wassalaamu calaykum